gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag Sheekh Jaamac Wilaadan oo la hadlay telefishinka caalamiga Home Cable TV ayaa ka warbixiyay dhalinyaro oo dhawaan maxkamadda gobolka Sanaag xukun ku riday isla markaana loo taxaabay xabsiga gaar aadaga waxaana uu gudoomiyuhu sheegay dhalinyaradaas inay ku dhaqmeen falal amni darro isla markaana lidib ku ah qaranimada Somaliland isagoo fariin u soo jeediyay waalidiinta waxaana uu sidoo kale gudoomiyuhu ka warbixiyay tirada dhalinyaradaasi iyo waliba xabsiyada ay kala mutaysteen horta waxay ahayn 27 bisha shanaad 27keedii 2024 waxa la hor keenay maxkamadda gobolka Sanaag 28 qof oo dhalinyaro ah ayaa xafiiska xeerlaalintu wax weeyaan hor keenay 8 qof 7 qof mid fakad buu ahaa 7 qof waxa uu xafiiska xeerlaalintu ku soo eedeeyay in ay calanka maaragtay wax weeyaan marka maakhir calan halka kan aan sharci ka ahayn oo laga ogolayn in ay markaa wax weeyaan markaa ay siteen isla markaana ay xaflado qabsanayeen ku saabsan calanka 8 qof wax weey arintaas ayaa lagu soo eedeeyay oo maxkamadda horteeda markaa ay kaga cadeeyeen xafiiska xeerlaalintu waxa haray 40 qof ee kale 40 qof ee kale waxay ahaayeen dadkii la dagaalamay ciidamada booliiska iyo ciidamada qaranka markii ay hawshan ku jireen dad dhalinyaro ah oo badan oo ay 40 qof oo kale ka soo qabteen ayaa waxa weeyaan markaa la dagaalamay oo shiiday baabuurta ciidankana waxa weeyaan jajabiyay marka arintaas baa maxkamadda la hor keenay 27 bisha dacwadaas markaanu dhageysanay xafiiska xeerlaalintu waxa uu keenay cadeymo iyo markhaatiyo cadeynaya arinta iyo dhacdadaas ee u dhacday dhalinyarada arintaas oo runtii aad iyo aad uga ahayd khatar uga ahayd waxa weeye nabadgelyada gobolka gaar ahaan nabadgelyada waxa weeye magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Argaabo 8 kamid ah waxaan ku xukunay min 2 sano iyo badh oo dadkii calanka ah inta kale oo 40 gaadhayana waxaanu ku xukunay markaa xabsi kale oo ilaa 1 sano ah ayaan waxa weeyaan ku xukunay si looga hortago amni darro waxa weeyaan markaa ka dhacda magaalada Argaabo sidaad ka warhaysaan amnigu waxa weeye qiimo aad iyo aad u fara badan ayuu ku fadhiyaa ilaahayna subxaanahu wa ta'aala quraanka uu kaga warramay amniga iyo waxa uu yahay ayuu ilaahay kaga warramay nabi ibraahim alayhi salaatu wasalaam rabbi ij'al hada baladan aaminan ilaahu beledkan aamin ka dhig buu yiri isagoo maka waxa weeyaan markaa ka hadlaya ayuu yiri waxa kale oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu yiri falyabudu rabb hada albayt ha aabudeen rabbiga beedkan iskale maka ayuu la hadiyay nabigu alayhi salaatu wasalaam alladhi at'amahu min juu'in wa amanahu min khawf ilaahaas waxa weeyaan markaa ka quudiyay gaajadina ka quudiyay nabadgelyo maaragtay qoofka iyo cabsidiina nabadgelyo waxa weeyaan markaa ee ka siiyay marka amnigu dadka muslimiinta dhexdooda iyo ummadaha oo dhan waxa weeyaan qiimo fara badan ayuu amnigu waxa weeyaan ugu fadhiyaa haddaan meesha amni jirin wax allaale iyo markaa wax ka jira oo nolol yahay yani markaa ma jiro waxa weeyaan markaa daruuriyaatul khamsa oo markaa waxa weeyaan dadka loogu talagalay in dadka qofka naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa in la ilaaliyo ayaa waxa weeyaan dhammaantood burburaya dabadeedna marka nabadgelyo la waado ummadaasi waxa ay ku noolaanaysaa nolol xun oo aan wanaagsanayn oo tawgaadho kala bay ummadaasi wax weeyaan ku noolaanaysaa wallahi idinku dhalinyaro tihiin sidaad laakiin aad maqasheen waxa weeyaan halka kan in nabadgelyo laga dhaliyo oo ummadda la isa soo dhex dejiyo waxa weeyaan dhowr iyo 93 94 meelaha juhdi aad iyo aad u fara badan ayaa la geliyay culays badan iyo maaragtay dhaqaale badan iyo fikir badan iyo maskax badan baa ku baxday dadka iyadoo 4 beelood markaa la heshiisiinayay in arinta waxa weeyaan wax laga qabto ragga arinta qabtay ama galay 90% way dhinteen ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka ugu daro dambigoodana Allah dhaafo wax yar baa waxa weeyaan markaa ka nool amniga caynkaas waxa soo juhdiye la geliyay in dad dhalinyaro ah oo aan waay arag ahayn oo aan waqtiyada jirin in ay si fudud burburiyaan arintaas waxa weeyaan arin banaan maaha ciidanka amniga ee meesha joogana in ay wax ka qabtaan oo ay maxkamad hor keenaan
وحوي وأرنكو واجب أي وحوي مركان نقنيسا سأمانك يعني وحوي مركا وحلوقة قبطه أمانك رسولك عليه الصلاة والسلام وحيد من أصبح منكم آمنا معافيا في سربه قفك وحوي مركا وابريست يسقو آمنة ومركا نفتي سئي مركا أهل كيس بآمنوا عنده قوت يومه أكتي سنة مركا قوت كي أمان تعون لها هيستا فكأنما حيس الله الدنيا بحذافيرها وحد مودا قفك إن لو سو أروريي دمان ضرف يدي الدنيا ده إن لو سو أروري بعد مودا يعني وحويان وح لوجه الرئيسي أمن جبال لوجه الرئيسي أما محمد مركا أنت أيلاك تهاي يصير أي تهاي مد ما أنت اللي يسقى ورما يومه وأنا خبال حدي عن أرنتاس اللي هرتشوكسن إنا أمن محمد وحويان أنت كسي بلارانيس محكمة ده وحويان حتى يوحكم يسعر مهدو كم شغلها عداوت يوحلا ميدا وايو حدان دين شيغايا waxa ku jira kuwa ugu xariga roon ama ugu xariga badan midaan adeer u ahay ayaa ku jira in abtiga Ruma oo labadeeda waalidka oday iyo habar tahay ayaa waxa weeyaa ku jira marka xilata inaan ina oran kareynin ujeedo gaar ah ayaa waxa weeyaan laga lahaa inaan waxa weeyaa idin oran kareynin waxa kale oo jirta nimankani waa niman dhalinyaro ah saddex hablood qura ku jiray waa dad dhalinyaro ah oo u badan dadka wax barta dadka noo yimi ee waalidka ah ama ehelada ahi waxay leeyihiin yani waxa weeye mid ka mid ah waxa weeyaan marka buugii buu qorayay jaamacadda mid ka mid ah jaamacad buu ku jiray mid ka mid ah imtixaan buu galayay mid ka mid ah fiisa u yimi waxa marka cad in yani waxa weeye halka ka cad inay dhamaantood naftan ay maaragtay nolosha inay hadaf waxa weeyaan marka ay kala haayeen laakiin aanay garanaynin si ay u ilaashadaan hadafka iyo yoolka ay doonayaan inay higsadaan aanay taa garanayn dhalinyaranimada darteed sadraadeed waxa weeyaan ayaa loo edbiyay waxaan u gudbinay xabsiga degmada Garadag maadaama uu xabsiga magaalada Cergaabo uu buuxo xabsi weyn aanu hayn una buuxo xabsiga weyn ugu dhow ee loo gudbin karo ee yani ugu firaaqada rooni waxa weeyaan xabsiga degmada Garadag oo isla gobolka yani waxa weeyaan laftiisa ah waana gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag uu sidoo kale fariin u soo jeediyay waalidiinta iyo dhalinyarada waxaan u dirayaa dhalinyarada kale xaaladahan oo kale inay ku kacaan laga yaabo arinta horta marka hore waxaan si guud baan idin ka waaninayaa xaaladda noocaas oo kale in la sameeyo waayo haddii ay dhacdo in dhibaato iyo nabadgelyo xumo dhacdo noloshoo dhan waxa weeye khalkhal baa gelaya ummaduna waxa weeyaan way baabaaysaa talabaadna waxa weeyaan waxa ogaataan qof kasta oo xaalad noocaas lagu qabto in talaabo sharciya waxa weeyaan laga qaadayo si nabadgelyada waxa weeyaan marka loo sugo inta ayaan waxa weeyaan u dirayaa iyaga mustaqbalkiina waxa weeyaan marka ku baabaayo maadaama yani waxa weeye dad mutacallimiina oo jaamacado iyo iskuulo waxa weeye aad ku jirtaan nin walba mustaqbalkaaga hadafka aad ka leedahay inaad xaqiijisaa laakiin waa inaanad ku xiiqin waxaan macna lahayn oo waqtigu kaaga lumo ama waxa weeyaan lagu xiro dhalinyarada intaas aan u dirayaa dadka waalidiintaana waxaan u dirayaa waalidku waxay nagu soo yaaceen markii la xirxiray carruurta markii dhalinyarada la xirxiray dadka daayarta markii la xirxiray ayaa nagu soo yaaceen waxa weeye ilaaju yani waxa weeye alwiqaayatu khayru min alilaaj in laga hortago ayaa daaweynta ka qiimo badan in la yimaado xilli waxa weeyaan markaa xukun dhacay oo la yiraahdo ama naga iibiya ama see loo gelayaa waxa ka qiimo badan in qof waliba uu ubadka uu ku tabcayo ogaado yani waxa weeyaan meesha uu joogo oo uu ka hor joogsado ficilada xunxun ee noocaas oo kale ah waxa weeye nabadgelyada khalkhalka gelinaya waxa weeyaan uu ka hor joogsado waayo nabadgelyo xumadu cidna dan uma aha waalidkana dan uma aha ubadkana dan uma aha wadankana dan uma aha علي آدم ظاهر تلفزيون عالمي هون كيبل تي في مقالة Cergaabo